markii aynu ka imaano in Israa'iil ay dhulka haysato Falastiiniinta aynu in yar isweydiino waa dal noocee xageesa dunida kaga jirta horumar ahaan. Israa'iil waa dalka kaliya ee bariga dhexe dhaca ee ka mid ah dalalka horumaray. Sidoo kale waa mid ka mid ah saddexda dal ee horumaray ee Aasiya dhaca. Israa'iil waa dal ka horumarsan nolol ahaan, aqoon ahaan iyo dhaqaale ahaanba badi dalalka qaaradda Yurub. Dhaqaalaheedu waxa uu kor u dhaafayaa 520 bilyan. Dakhliga soo gala qofkii Israa'iiliga ah waa $55,000 sanadkii celcelis ahaan. Israa'iil waxay hormuud u tahay wax soo saarka tiknoolajiyadda, aqoonta caafimaadka, daaweynta, sifeynta dhaymanka, keydka hantiyeed iyo waxbarashada. Waxbarashadoodii horumarsan ayaa ka saaciday inay hormuud u noqdaan tiknoolajiyadda caalamka. Israa'iil deegaan ahaan dhulkeedu aad ayuu u yar yahay oo biyaha la cabo ayaa xitaa ku yar. Sidoo kale kheyraad ma laha. Aqoontooda ayaa sababtay inay biyaha iyagu sifeystaan. 50% biyaha Israa'iil isticmaasho waa biyaha badda oo ay sifeysteen. Waxa ay gaareen isku filnaansho waxbeerasho oo aad u sareeya. Waa dalka ugu badan ee dhaymanka lagu sifeeyo. 10,000 ee qof ee shaqaale ah 140 ka mid ah ayaa saynisyahano ah. Waa xaddiga ugu sareeya caalamka. Tan iyo 2004 Israa'iil 6 qof oo ka soo jeedo ayaa qaatay biladda Nobel Prize-ka. Dalka sidaas u horumaray dhul ahaan waxa uu ka yar yahay gobolka Mudug oo 5 qaybood loo qaybiyay qaybtiis. Dadkeeduna 10 milyan ayay ka hooseeyaan. Haddana waxa uu dalkaasi haystaa dhaqaale aysan haysanin dowlad Afrikaan ah iyo mid Yurubiyan ah iyo xitaa horumar aysan haysanin dowlad Eeshiyaan ah. Iyagoo ku dhex jira 200 milyan wax ka badan oo Carab ah ayay kaga horumareen dhaqaale ahaan, aqoon ahaan, dad ahaan, tiknoolajiyad ahaan iyo nidaam ahaanba. Carabtaasi weliba shidaal ayay ku nool yihiin iyo kheyraad kale. Hadda sida Israa'iiliyiintu u horumareen weli 30% xitaa kuma heer aha. Israa'iil qaaradan ayay iyada iyo Japan iyo Singapore iyo South Korea darajada horumarka sare ka gaareen. Ma aha inaan ammaanayo se waa sida muuqata Israa'iil iyo booska ay dunida kaga jirto. Waxaa xusid mudan in Israa'iil dalalka Afrika oo idil ay ka dhaqaale badan tahay. Sidoo kale dalalka Imaaraadka, Qatar, Masar, Pakistan, Malaysia, Singapore ay ka mid yihiin dalal ay ka dhaqaale badan tahay. Shidaalna ma soo saarto.